إنسانك هدي قرشادة كتاكدو أما وح فهمي وايو يعني عقليك أو كشقيسين وايو waxay noqonaysaa in wax lagu tusaaleeyo xoolaha duurjoogta ah dhaqankooda iyo waxa cawaaqib xumo ah ee ku dhacda haddii aysan raacin qawaaniinta Alle uu dejiyay. Kuwani waa laba cawl waxay ku hardamayaan ama ay isku dagaalayaan goob barxad ah. Waxaa goobta u soo daawasho tagay dhammaan xoolaha duurjoogta ah, gaar ahaan kuwooda disha dadka iyo dugaagta kaleba si ay u helaan fursad ay ku soo weeraraan inta ay iyaga isku maqan yihiin. Waanan la fahmayn sababta ay labadan cawl isku haystaan. Haddana waxaa la ogyahay in wax uun ay ka dhaxeeyaan. Waxaa si kadis ah labadii cawl gadaashood ugu soo baxday gool doonaysa inay ku waliimaysato iyaga. Waxayse gooshii la hartay mid ka mid ahaa labadii cawl, oo midii kalena si dirqi oo jahwareer ku jira ay ugu baxsatay goobta. haddaba arintaasi oo kale alla weyne wuxuu ugu digay muslimiinta wuxuuna yiri وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أدعنا الله رسول كيسا حنا إسقباننا أو متكين كان كلا ييدان جيسين مجبين si xooggiina uu u tagin yacni u fashalmin oo sabra hubaashii Alle wuxuu la jiraa kuwa sabra. sidaasi darteed fariintani waxay ku socotaa qof waliba oo Soomaali ah oo doonaya inuu walaalkiis waxyeeleeyo. ogow intaad isaga ku maqan tahay ayaa adigana cadowgaaga kugu soo maqan yahay. haddii aan midowno waan sii jiraynaa oo taagnaanaynaa. haddii si aan kala tagno waynu dhacaynaa oo burburaynaa mana sii jirayno.